waxaa galabta garoonka diyaaradaha ka hadaan kana soo degaan Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan Maxabe Hodan Cabdiraxmaan Dheere waxaana soo dhaweynta fanaanada ka qayb qaadanayay abwaaniin fanaaniin taageerayaasha fanaanad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana madashi lagu soo dhaweynayay fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan halkaas hadal ka jeediyay qaar ka mid ah fanaaniinta iyo abwaaniinta waaweyn ee ku nool Hargeysa waxayna si weyn u soo dhaweeyeen fanaanada Hodan Cabdiraxmaan maalin qiimo badan runtii waa maalinta kulmisay fanaaniin badan oo laga yaabo muddo inaanay sararki jirin oo maalin la isugu soo dhamaadeen soo dhaweynta Hodan Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe fanaanad ugu qaaliya fanaanadka koox ahaan ugu qaaliya ka shakhsiyad ahaan ugu qaaliya fanaanada in codkeeda wada garanayno dhagaheennana horeba u hantiday oo ku soo guriyo noqotay wal magaaladeedii laakiin xiisahan u qabna darteed iyadoo goorta ay naga tagtay aan aad buu fogeyn ayaan leenahay soo dhawow Hodan soo dhaweynaya walaashay Hodan Cabdiraxmaan Maxabe on lay soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow fanaaniintaadii kooxahaagii iyo kooxaha xidiyaagiis waxay ku leeyihiin soo dhawow maalin weyn waa maalin boqran waa maalin aad jawiga iyo quruxda aad yaabisaan waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa inantaan abtiga u ahay adeerkana u ahay labadaba waxaan leenahay soo dhawow caasimadii Soomaaliland ku soo dhawow dalkaagii hooyo ku soo dhawow dadkaagii fanaaniintaadii oo ku heelan fanaaniinta reer Hargeysa iyo dhammaan kooxaha ka jira Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa fanaaniinta eriyatay Hodan Cabdiraxmaan ee kaga hadhay meel baan oran karaa aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno ooniyada halka u taaganahay Hodan Cabdiraxmaan aad iyo aad baan kuugu xiisnay bagu Ilaahay ku soo nabad celiyay si nabadgelyo leh iyadoo oo maantuna ay noqotay maalin imaatinkeedu sababeyntaas fanaaniin isugu yimaadaan farxad ku soo dhaweeyaan waaweynaayo dadkiiga waaweynaayo maamuus iyo magacba lahaa baa yiri waxaan oranayaa anaguna ka koox ahaan iyo ka fanaaniin ahaan waxaan oranayaa walaashay marna eedaday marna saaxiibaday soo dhawow baan oranayaa doorta hadal waa la dhimay farxaduna way naga wada muuqataa dhamaantayo Hodan Cabdiraxmaan horta mar kasta waan wada joognaa laakiin markana iga sii farxad badan tahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow aniga Hodan waa maamaday marka aan maamul leeyahay ma aha qof iga weyn laakiin ixtiraam ahaan qof aan aad u jecelahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa walaashay Hodan waxlayna soo dhawow hay fankeeda aan taageero Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo aan leeyahay mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar walba soo dhawow walaalo aad baan ku jeclaan geesteeda fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaa u mahad celisay abwaaniinta iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ee maanta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport dhamaan ummadda reer Soomaaliland TV-yada asxaabta fanaaniinta wariyaha wadada ugu horeyso dhamaantiin waxaan leeyahay wad mahadsantiin sida qiimaha iyo qadarinta la igu soo dhaweyseen dhamaan fanaaniinteeda halkan caawiso ugu timiday ama galabta halkan ugu timiday goobta airport-ka waan is wada naqaanay waan is wada aragnay waa asxaabteydii wadadan la cunay wadadan la ceshay wadadan habeen iyo dharaar iyo galab iyo casr iyo maqrib ka warhayo waxaan si gaar ah iyo aad caaw maanta igu weyneed inaan nadiirno isku arko magaalada Hargeysa walaal waxaan ku leeyahay thank you aad baan ku salaamayaa waxaan idinkaga mahad celinayaa fanaaniinta xaq dumar iyo xaq rageed walaalahay intii ila kooxa intii aan kooxdeeda ka tirsanayn ee laakiin fankayga iyo walaaltinimadeeda jecel aad baan idin jeclahay mar walba idin jeclahay Hargeysa mar walba waan imaadaa waa hooyigaygi waan sii soconayaa waan soo soconayaa mar kastana sidaan iyo si ka qurux badan oo ka sharaf badan ayaan idinku farxayaa mar walba idin imaado quruxda ay tustaan walaal waan idin jeclahay waa cilmi maxamed cumar ilmo rajo wararka telefishinka badacas Hargeysa